الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه ما بعد وعن كهد دونامانت إن شاء الله تعالى في فضل الدعاء وآدابها وحكمها أيامه وحين جوجنا يا وقت يدي الأقبل الدعاء كان يقيمها بضنين فرصتنا أي ترتي marka ducada iyo wixii sharcigeenu ka yiri ugu horay ducadu waa deeq ilaahay uu siiyay qofka muuminka ah iyo silaax iyo hub uu leeyahay oo aanay lahayn dadkan ilaahay rumaysnay ilaahay ma bariyaan haday bariyaana lagama aqbalo waa iman laawe marka qofka muslimka ah asbaabta maadiga ah oo kaliya ma cuskado ama sababaha la taaban karo kaliya laakiin waxyaabuhu cuskada waxa ugu weyn inuu ilaahay garabsado oo uu gargaarsado oo uu bariyo oo dadaalkiiyo ducadu mar walba isbarbar wada qofka muslimka ah arinta saddexaad aynu ku dooranay waxa weeyaan mafaahiim yanbaghi an tusaxح iyo aragtiyo dadka qaarkood ay qabaan oo u baahan in la saxo oo dadka qaarkood baa laga yaabaa inay iska fudaystaan ducada ama iska ilaawaan cibaadooyinka kalena ay sameeyaan qayb kamida waxa laga yaabaa inay u qabaan waqtiga adkaata in ilaahay balabariyo ama uu xanuunsado ama balaayo ku dhacdo qaar kale waxa laga yaabaa inay u qaataan dadka waaweyn ee gaboobay iyo wadaadadu inay duceeyaan oo dhalinyarada aan ducaba looga baahnayn ama doorkooda aanay ahayn dar kale laga yaabaa inay u qaataan in loo duceeyo mooy inaanu isagu ducaysaninba oo hebelo inoo duceey iyo sheekhow inoo duceey mooyaane isaga inaan ducadu u furnayn arrimahaas oo u baahan in la saxad daraadeed ilaa 20 qodob baan si degdeg ah u dareerin doonaa insha Allah oo ducada iyo waxyaabaha ku xeeran kamida marka horeeyo waa xukmu ducada in ilaahay la bariyo xukunkeedu waa maxay ma waajiba ma sunna ma mubaahba maya waxay kamid tahay waajibaadka aan laga tagi karin waayo amar Allah dhaco ilaahay wuxuu ud'uuni astajib lakum ibariya buu ilaahay tamaradu ilaahay nafaray amarka waa qaadanayna waxa labaad oo aynu ogaanaynaa ducadu inay ka mid tahay cibaadooyinka ugu muhiimsan sida ilaahay uu innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam markuu ina faray inaynu ducaysano inoona ballan qaaday inuu ina aqbalayo ducadii cibaadu rabbi ku tilmaamay cibaadada qofka ka kibraana ee ilaahay bari waana naar buu galayaa cibaadada ducadu miisaanka leedahay aayadaas way cadaysay nabiguna waa si cadeeyay wuxuu adducaa huwa alcibaada ducadu waa cibaadada lafteediiba cibaadadu waa amal aynu ku xaqiijinayna adoonnimadeena marka inaad ilaahay bariyayso waxay sheegaysaa baahi badan baad muujisatay adoonkii oo sayidkiisii u baahan baad laakiin haddaad ilaahay bari weydo adoonnimadaadii ma jirto ducadu waxay ku dhaweysaa ilaahay subxaanahu wa tacaala aayadaha soomka waxa ku jira aayadii ducada ilaahay baa wuxuu weydaa saalaka cibaadi anni fa inni qariib ujiibu dacwata ad-daa'i idha da'an falyastajibu li walyu'minu bi la'allahum yarshuduun adoomahaygu marka ay ka weydiiyaan u sheeg nabi maxamedow inaan u dhowahay oo fariinta gaarsii waa markay asxaabtu yiraahdeen ilaahay miyuu noo dhow yahay oo waanu hoos baan u barinaa mise waa naga dheeriyo waanu u dhawaaqnaa ilaahay baa jawaabta bixiyay waanu dhawahay waxaan ballan qaadayaa mar haddii iyagu aqbaleen inaan anna ducadooda aqbala buu ilaahay subxaanahu wa tacaala fadliga waxa kamida ducada inaynu ilaahay barino subxaanahu wa tacaala inagoo luqadeena ku bariyayna oo wixii aad ducada markaad ilaahay bariyayso waa inaad ku baridaa luqadii aad fahmayso ama ducooyinkii soo arooray oo laga dhageystay si aanad u jajabinin oo duca laxni la aanay ducadaadu noqonin fadliga ducada isagoo ka waramaya nabigu xadiis xasana waxa uu ku yiri laysa shay'un akrama ala allah min ad-du'a cibaadooyinku ilaahay ugu jecel yahay waa ducada shayga ugu karaamo badan ilaahay ugu jecel yahay waa ducada shayga amalka la yiraahdo waxa mudan inaynu ilaahay barino subxaanahu wa tacaala waqtiyada aynu baraaraysanahay
ama aynu barwaaqaysannahay si inoo aqbalo wakhtiga aynu dhibannahay nebigu waxau uhi man sarahu an yastajiiba allahu lahu cinda ashadaa'idi waalkurabi falyukthir adducaa fi اrakhaa markay adkaato ee arrinku qofka ku adag yahay qofka doonaya wakhtigaa inuu ilaahay aqbalo markuu badhaadhaha iyo barwaaqada ku jiro ilaahay ha baryo oo ha xusuusto laakiin markay kugu adkaato uun haddaad ilaahay barida inaan laga aqbalin baaba suuragalah markaynu xadiidkaa eegno ducadu aad baynu ugu sii baahi badannahay wakhtiyadan cudurrada iyo cabsidoodu ay nahayaan ee qofna buko midna cudurkii sanka ka xidhay ama uu ka warwarsan yahay nebigu wuxuu yihi salى اllahu عalayه waslm xadiid saxiixo dabaraani uu warinayo laa yugnii xadaru min qadar wاdducaaءu yanfacu mima nazla wamima lam yanzil waina اdducaaءa layanzilu waina اlbalaaءa layanzilu fayalqaahu اdducaaء fayactalijaani ilaa ywmi اlqiyaamة ay yatasaaracaani wixii qadara waxba ma celiyaan laakiin lifaaq wan nebigu raaciye waxa weeye ducadu waxay wax ka tartaa balaayada soo degta iyo ta soo socota balaayadii oo kugu soo socotaad ka ducaysanaysaa ilaahay baa qadaraya inuu kaa duwo oo aanay kugu dhicin xadiid kale oo tirmidi warinayo xasanana nebigu waxau uhi laa yaruddu اlqaضاء ila ducaa walaa yaziidu fi اlcumri ila اlbir samafalku cimrigu dheereeyaa oo uu kordhiyaa ducaduna waxa ilaahay uu qadaray ayaa ilaahay uu ku joojiyaa qadarka isagaa bixiya oo qadara ducadu inay joojisana isagaa qadaraya wax qadarkiisa ka baxayaa ma jiro marka arrimahaas waxay tilmaamayaan xukumka ducada mansilada iyo meeshay taagan tahay islaamka dhexdiisa ducadu iyo fadliga ay leedahay marka haddaba si ay u qurux badnaato aqbalkeeda iyo ijaabadeeda ducada ay u dhowaato waxaa laga maarmaana aadaabba laga maarmaana aada u muhiima waxaa kow ka ah taxari lxalaal inuu qofku xalaasha ku dadaalo xaaraanta waxa la yidhaahdo afkiisa iyo uurkiisa iyo ibtiisa iyo adduunkiisaba uu ka ilaaliyo arrintaasina daliilo badan baa ku soo arooray wuxuu nebigu xusay calayhi salaatu wasalaam ummadda uu la hadlo xadiidkii saxiixa ah wuxuu ku yidhi ilaahay wuu wanaagsan wixii wanaagsan baanu aqbalaa wuxuu dad yahow idin faray wuxuu rasuullada faray rasuullada wuxuu faray camal wanaagsan iyo cunno wanaagsan yaa ayuha rasuulu kuluu min aayibaati wacmaluu saalix idinkana wuxuu idin farayaa camal wanaagsan iyo cunno xalaala marka nebigu wuxuu ka sheekeeyey qof ilaahay baryayo oo aada u baahanoo ducada khushuuca ay la socoto musaafirahoo haddana gacmaha kor u taagayo haddana waxba laga aqbali laayay marka wuxuu ku sababeeyey dharkiisa iyo dhuunigiisa iyo cunadiisa iyo cabidiisa iyo wixii lagu soo koriyeyba waa xaaraam weeye faannaa yustajaabu lidalik kaasee duca looga aqbalaya marka xaaraantu baryahan dambe way baahday waanay badatay dadkuna wuu fudaydsaday marka arrintaa xaaraanta waa inaynu aada uga feejignaano inagu xeerana inagu iman karta waxay kaa aafaynaysaa ducadaada cibaadadaada iyo caruurtaada intaba ducada aadaabteeda waxaa ka mid a inaad ilaahay keligii barida subxaanahu wa tacaala oo aanad cid ku lamaanaynin oo ilaahay waa ka maarmay in cid kale lagu lamaaneeyo haddaad cid kale ku lamaanaysana wuu kaa xumaaday camalkaasi marka ilaahay baa keligii la baryayaa qul inamaa adcuu rabbii walaa ushriku bihi axada waxaan keligay baan ilaah u yeedhanayaa baryaya cidna ku lamaanayn maayo aadaabta ducada waxaa ka mida inaanad waxba kor u qaylinin asxaabtu iyagoo nebiga ag joogay aada u dhawaaqeeno wuxuu uhi naftiinna waxba ha dhibine ilaaha aa baryaysaan wuu idiin dhow yahay waanu idin maqlayaa si hoose u barya udcuu rabbakum tadarucan wa khufya ilaahay idinkoo isu dhuldhigayoo baahi muujisanaya barya buu ilaahay codkana hoos u dhiga si aan istusnimo iyo isbaqashiin iyo waxba u gelin ilaahay markaynu baryayno aadaabta waxaa ka mid ah inaynu ku barino magacyadiisa walilaahi alasmaau اlxusnaa fadcuuhu biha magacyo aada u qaaliya buu ilaahay leeyahy ku barya yaa casiiz yaa kafaar yaa raxiim yaa raxmaan markaad codsiga qadinta magaca ilaahay baad u horreysiinaysa qul idcu llaha aw idcu raxmaan ayamaa tadcuu falahu اlasmaau اlxusnaa markaa kolkaad magacyada ilaahay ku dhex darto ducadaada afgarashadii qaaliga ahayd baa imanayso aqbalkaa dhowaanaya
ducadu aadaabteeda waxaa ka mid ah in qiblada la qaabilo markuu nebigu sala allahu calayhi wasalam istisqaaga samaynayey ee roobdoonta ilaahay uu weydiinayay qibladu u qaabilay nebigu calayhi salaatu wasalaam asxaabtana dhabarkaaba uu sii jeediyey aadaabtay ku daraan culamadu waxaa ka mid a aadaabta mulaaxadatu alawqaati alfaadilati waalxaalaati ashariifa wakhtiyada qiimaha badan inaad ku beegto wax waliba wuxuu leeyahay fursad lagaga faa'iideeye wakhtiyo waxaa jira daliilada ku soo arooro fara badan oo laguu sheego la inoo faa'iideeyey in ducada la aqbalo oo telefoonku dhaqso uu u gelayo markaa codsigaynu ilaahay u qadimaynaa waa toos wakhtiyadaa mid walba xadiid iyo waxa ku soo arooray adilada nebiga ka sugan calayhi salaatu wasalaam waxaa ka mid a bisha ramadaan maalinka jumcaha habeenkii wakhtigan aynu suxuuranayno wakhtigu qofku sujuudsan yahay marka roobku soo degayo aadaanka iyo aqiimidda dhexdooda gaalada iyo islaamku marka ay kulmaane la dagaalamayo weerarku dagaalku bilaabmayo qofku kolkuu cabsanayo kolka qalbigiisu dabacsan yahay ilaahay uu soo jeedo arrimahaasoo dhan daliilaha ku soo arooray intaynu haynaa markaa imika ramadaan waa ku jirnaa qofku markuu soomayana duca la aqbalaa buu leeyahy markuu afurayana ducuu leeyahy la aqbalayo markuu suxuuranayana mid buu leeyahy jumcadii leylatulqadri oo caaisha ay weydiinaysa rasuulka habka uu ay u ducaysan lahayd allahuma inaka cafuun tuxibu alcafwa facfu canii waxaasoo dhan oo isku beegmay haddii ay ku weydaartaan adoo iska dhex taagan nacasnimo nin weyn weeye marka inaad ka faa'iidayso fursadahaasi aad iyo aad bay muhiim u yihiin aadaabta waxaa ka mid a inuu qofku gacmaha kor u taago oo xadiidkii salmaan alfaris warinayey waxa uu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam ina rabbakum tabaaraka watacaala xayiy kariim yastaxyi min cabdihi idaa rafaca yadayhi ilayhi an yarudahumaa shifra ilaahay weynaayo wanaagsanaaye waa mid xishood badan uu ka xishoodaa addoonkiisii gacmaha u soo taagay yaa rab ilaahay ou yidhi inuu ku soo celiyo gacmihii oo madhan marka aadaabtay ka mid tahay ibtihaalkay noqonaysaa buu lahaa ibnu cabaas oo dee nebiga ka fahmay calayhi salaatu wasalaam xadiidkiisii oo dee ag taagnaa waxa uu leeyahay mas'aladu waa in gacmaha kor loo qaado istikfaartuna waa in farta la fiiqo ibtihaalkuna waa in gacmaha kor loo dheereeyo aadaabtay ku jirta aadaabta waxaa ka mid a inaad ilaahay ku mahadiso ammaantana cid bani aadama haddii aad waxu doonato oo aada wixii hore uu ku siiyeyna ku ammaanto xaaladihiisa wanaagsanna sheegto wuxuu odhanayaa war qofku wanaagsana tii horeaba xusuusay abaal buu kugu hayaa iminkana u kordhi ilaahay maxaad u malaysay subxaana wa tacaala marka ilaahay waa inaad ammaan iyo mahadnaq iyo wuxuu balaayo kaa duway iyo wuxuu barkhad iyo khayr ku siiyey waa inaad tirisaa waa inaad ammaantaa waxay ka mid tahay aadaabta nebigana waa lagu salleeya sala allahu calayhi wasalam nin buu nebigu maqlay salaada dhexdeedii ducaystay oo salligii ka tego wuxuu uhi kani wuu degdegay cajila haada wuu degdegay buuhi kol haddii aanu rasuulkaba ku salliyin sala allahu calayhi wasalam marka ammaanta ilaahay iyo salliga nebiga ducada la raacinayaa qofku markaa uu ducaysanayo waa inuu ku ducaystaa wax ilaahay ogol yahay oo aan xaaraan ahayn qaraabo goysnimona ahayn midkiin waa la aqbalayaa buu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam ducadiisa haddii aanu xaaraanna codsanin isla markaana qaraabo goysnimo dembiya aanu ilaahay baryin oon dadka qaraabadaa habaarayn xaaraanna ilaahay baryayn odayaasheenni hore waxaa ka mid ahaa ilaahay oo muraadka iyagoon macsiyo ahayn nasiib muraadka iyagoon macsiyo ahayn muraadkaanu leenaye codsigeegu hadduu macsiyo yahay iyo dembi ha nasiini wey aadaabta waxaa ka mid a cadamu istibطaa alijaaba qofku markuu ilaahay baryo inaanu aqbalidda iyo ajiibidda ducada inaanu degdegsanin oo aanu odhanin ilaahay baan baryey oo aan baryey waxbaba igama aqbalinba waxbaba igama aqbalin waa edab daro ka daayo iska suguun codsiga ilaahay wuu kuu maqan yaho siyaabo codsigaad ilaahay codsatay wuu kugu maqan yahay oo ballan buu qaaday marka siyaabuhu aqbalaabaa kala duwan balaayuu kaaga difaaci karaa aakhiruu kuugu dhigi karaa imikuu kuu soo dadejin karaa siyaabo kala duwan ducada markaad ilaahay baryayso waa inay maca aljasmi go-aan waa inuu jiraa oo nebigu wuxuu inoo diiday sala allahu calayhi wasalam inuu qofku idhaahdo ilaahay ducada iga aqbal in shiita haddaad doonayso ilaahay laguma yidhaahdo sidaas subxaana wa tacaala marka ducadu waa inay go-aan leedoo tacliiqa laga reebaa
aadaabta waxaa ka mid ah in la isticmaalo jawaamicu ducaa ducooyinka gudaha ballaaran ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد دعوينك السداء معناها بلارنا جامعة النبي كسو أروري سرت علوس حنبارسن إن براتو أد إلهي كبريدو أدابت وحا كمدا تكرار الدعاء دعاء إن لقو عليو oo haddii aad mar tidhaahdo mar labaad ku celi codsiyadaada iska wadun ilaa meel aad u kacdiyo meel aad ilaahay kaga maaranto iyo cid aad kaga bedelato dee midnaba ma jire aadaabta waxaa ka mid a in aanad ehelka habaarin macnaha ubadkaaga iyo oridaada iyo adduunkaaga xadiidkii nebigu ka sugnaa calayhi salaatu wasalaam wuxuu lahaa saacatulijaaba waafiqine oo habaarkaa aydaan isla helini adab dara ayay tahay inaad adigu ishabaarto ishiifto ama caruurtaba aad habaarto adaabta waxaa ka mid ah cidina inoogama baahi badna waxaynu codsanaynee inaynu nafteenna ka bilowno marka ducooyinka qur-aanka ku soo arooray nebiyadu ilaahay ay baryayaan iyo saalixiintu mid waliba naftiisu ka bilaabaya rabbi ikfir lii waliwaaliday qofku isagaa markaa isku bilaabaya ducada aadaabta waxaa ka mid a ducada in waalidka laga ducaysto oo waalidku duca la aqbalaa buu leeyahy qofka soomana duca la aqbalaa buu leeyahy buu nebigu calayhi salaatu wasalaam marka waladku dadku ka ducaysanaya waxaa ka mid a waalidkiisa waxaa ka mid a walaalaha ducadooda oo xadiidkii saxiixa muslim ku sugnaa nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yihi qofku markuu u duceeyo walaalkiisa maqan malag baa ag jooga oo odhanaya aamiin walaka bimil allaha kaa aqbalo adiguna intaa walaalka aada ugu ducaysay in la eg baad leedahay marka naftaadaad u ducaynaysaa ehelkaagaad u ducaynaysaa ubadkaagaad u ducaynaysaa asxaabtaada iyo ummadda islaamka oo dhan waa ereyo kooban oo odhanayso wax adduuniba kaaga baxayninba laakiin markaad muslimka mid dhiban iyo mid dheefaysta iyo meel kastay joogaanba ilaahay u barido adigana malagan wardiga ku haya wuxuu leeyahay intaa in leeg allaha ku siiyo adigana intaa in leeg allaha ku siiyo adigana intaa in leeg allaha ku siiyo malaa'igta ducadoodana waa la aqbalaa waayo ilaahay baa soo diray oo gol amray marka arrimahaasoo dhan 20 arrimood baan si degdeg ah u dul maray oo ka mid ah axkaamtii aadaabta ducada yaynaan ilaawin oo wax badan oo kale ay nagu xeeranay aynaan weydaaranin laylatul qadriga habeenka laylatul qadriga aan ku dadaalno jumcaha saacadda ugu dambaysa casarka waqtiyada qoraxdu ay sii dhacaysa in yar ka hor aan ku dadaalno sujuudda aan ku dadaalno inta aan soo sheegay oo dhanba markaasaa laga yaabaa si dhaqso ah waxaynu inay hirgalaan waliducaa'i adilatun liqabuuliha ducada in la aqbalana daliilay leedahay wax iska cad weeye oo marar badan baa waxa dhacda qof dhibaataysnaa intuu ilaahay baryo wixii uu codsaday in si toosa loo arko wax dhaca weeye qof baa loo duceeyey ducadiioo sideedii ah waa la arkayaa nebi maxamed ba calayhi salaatu wasalaam isagoo mimbarka ku taagan ayuu uhi ilaahowna waraabi ilaahowna waraabi ilaahowna waraabi hadalkii isagoo wada bay dhibicdii isqabsatay markaa ma nihin dadkii ducada ka shaki lahaa ama itaabsi iyo tus odhan lahaaye ducadu waxay leedahay daliilo waaqica ka muuqda oo ka markhaatiya in ducada la aqbalo oo nusuustana ku sugan inaguna aynu arkayno markaa ma ka warwarayne waynu ku kalsoonnahay aan ka faa'iideyno dembigeenana allaha dhaafo kii waalidkeena allaha dhaafo waxaynu haynaba allah inoo barakeeyo waxaynu ka baqaynana allah inaga badbaadiyo rabbanaa aatinaa fi dunya xasanatan wa fi laakhirati xasanatan waqinaa cadaaba annaar اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وقراءتنا وصدقتنا وأعمالنا كلها يا أرحم الراحمين صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وسبحان ربك